بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. waxaan yara baraarujinayaa 7 rajab ayaa waxa aan baxday in la yiraahdo waa habeenkii ay ahayd laylatul isra wal mi'raj. dadna xusid la xusaayo ayaa dadka qaarkood sameeyaan, waxaana dadka qaarkood ayba ka dhigteen ciid baabay ka dhigteen. ugu horeyn ciidaha sharcigu waxay ku kooban yihiin intii sharcigu sheegay. maalin kale in ciid laga yeeshaa ma bannaana. ciidaha sharcigu waxay ku kooban yihiin waa ciidul fitr iyo ciidul adxaa, waa 2 ciidood oo sanawi ah, iyo yawmul jumuca oo ciid usbuuciya ah. ciid kale oo islaamka ku sugan ma jirto. adilla inay leedahay ciid kale inaan lala iman karin. daliilada ay leedahay waxaa ka mid ah ansaartu waxay lahaan jireen waagii hore qabla alislaam 2 maalmood ay ciyaaraan oo ay ka ciid yeeshaan. markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu arkay markuu soo hijroodo madiine yimi iyagoo 2 maalmood weynaynaya oo ciyaaraya. markaasuu wuxuu weydiiyey nebigu sala allahu alayh wasalam maa haadaani alyowmaan, 2 maalmood maxay yihiin? waxay yidhahdeen waa 2 maalmoodoo wakhtigii hore ee gaalnimada aanu ciid ka yeelan jirro oo ciyaari jirray. nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qad abdalakum allahu bihimaa khayran minhumaa. ilaahay 2 maalmood wuxuu idinku beddelay 2 maalmood oo ka khayr badan ayuu idinku beddelay. xadiiskaasina waa haabita, waa sugan yahay. waxay ahlucilmigu kala baxeen oo ka daliishadeen xadiiskaas annahu laa yujmacu bayna almubdeli waalmubdeli minhu, kii lagu beddelay iyo kii laga beddelay inaan la kulmin karin. halkii bay ku joojiyeen ansaartu 2 maalmood ee ay ciyaari jireen ee iyaga u gaarka ahaa. halkaa waxaa laga qaadanayaa inaan ciid kale lala iman karin. waxaa kaloo u daliila xadiiska saxiixa ee nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inna likulli qawmin ciidan wa hada ciiduna. qolo waliba ciid bay leedahay, tan baana innaga inoo ciid ah. culammadu waxay ka daliishadeen inna likulli qawmin ciidan, ciiduhu inay isdhex galaan inaynay ahayn oo ciidaha sharciga uun ay ku kaaftoomaan dadka muslimiintu. waxay kaloo ka daliishadeen culammadu xadiiska kale abu daawuud uu soo wariyey ee isaguna saxiixa ah min xadiisi haabit ibni daxaak fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu laa qaala fahal kaana fiiha wathanu min awthaani iljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala awfi binadrika fainahu laa wafaa'a linadri fii macsiyati illah. xadiiskan laftiisu wuxuu ku tusinayaa meeshii ay ka ciid yeelan jireen gaaladu in ciid laga samaystaa inaanay bannaanayn, ama markaa in la sameeyo in meelihii wax lagu qalqalo oo ciiduhu makaani iyo zamaan iyo mid walba leeyihi. marka culammadu adillo badan bay ka daliishadaan, sidaas aawadeed ciid aan sharci ahayn in laga ciid yeeshaa ma bannaana. ciiddaasi ha ahaato ciid ay markii hore gaaladu la timi sida ciidda kirismaska ama nayruuska ama dabshidka, waa ciido gaalo. ama ha ahaato ciid dad muslimiina ay la yimaadeen oo jahli ahaan iyo aqoon darro ay ula yimaadeen, sida markaa ciidaha ay dadka qaar isticmaalaan ay ka ciid yeesheen maalintii dhalashada nebiga sala allahu alayhi wasalam, ama habeenkii laylatul isra waalmicraaj, ama dadka qaarkood ay ka ciid yeesheen maalintii xornimada ama maalinta gooniisitaagga ama maalinta boqorka waddan haystaa uu kursiga ku fadhiistay yowmuuljuluus ama ciiduljuluus ay ula baxeen, ama ciidul istiqlaal ha noqoto ama ciiduljuluus ha noqoto ama ciid kale ha noqotee ciid aan sharci ahayn in laga ciid yeeshaa ma bannaana. aayaadka qaarkoodna culammadu waa ka daliishadeen waaladiina laa yashhaduuna azuura waidaa maruu billagwi maruu kiraama. laa yashhaduuna azuura acyaad aljaahiliya bay taabiciinta qaarkood ku fasireen, waxaana saxiixa culammada odhanaysa waa caam oo iyaga iyo wax kalaba waa soo gelayaan, wax alla wixii baatil oo dhan baa soo gelaya. nebigu sala allahu alayh wasalam
maalintii uu dhashay ama habeenkii la dheelmiyey leylatalisraa waalmicraaj midnaba ciid kama dhigan saxaabadii nebiguna sala allahu alayh wasalam midnaba ciid kama dhigan habeenkii leylatulisraa waalmicraaj dhacay cayntii habeenkaa lama garanayo goor habeena inuu dhacay waa la garanayaa laakiin sannaday ahayd iyo bishay ahayd iyo taariikhdu habeenkay ahayd midna la garan maayo daliil saxiixa looma hayo inay rajab ahayd iyo inay 27 rajab ahayd midnaba xadiis saxiixa ku soo arooray ma jiro bal culammadu waxay isku khilaafeen sanadii uu dhacay markaas ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin qabla alhijrati b10 siniin hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam 10 sano ka hor ayaa laylatul israa wal mi'raaj ahayd culamada qaarna waxay leeyihiin maya 3 sano ka hor bay ahayd aqwaal kalena way jirtaa intay isu jirtaa 3 sano hijradii nabiga ka horeysay iyo 10 sano ka horeysay sanadiiba haddii la isku waafiqi waayo bisha la isku waafaqsan yahay marka culamadu waxay yiraahdeen ala sabiil at-ta'yin sanadkay ahayd qabla al-hijra inay ahayd waa la garanayaa laakiin sanaday ka ahayd iyo bishay ka ahayd iyo habeenkay ka ahayd inta bishu ahayd midna la garan maayo haddii muslimiintu qadarin gaara habeenka ay u hayaan oo habeenay xusaan oo ka ciid yeeshaan ama xafida sameeyaan ay ahaan jirtay taariikhdeeda waa la xafidi lahaa marka inaan taariikhdeedii la xafidin ictibaar gaarana aan la siinin oo lagu xusaayo oo lagu xafladaynaayo oo lagaga ciid yeelanayo midnaba inaanay jirin ayay caddaynaysa saas aawadeed habeenkaasi ma sugnaa inuu ahaa bisha rajab gudaheeda iyo inuu 27 rajab ahaa midnaba ma sugnaa hadday sugnaan lahaydna in wax lagu gaar yeelo ama cibaado lagu gaar yeelo ama xaflada lagu gaar yeelo ama ciidnimo lagu gaar yeelo daliil male la daliil calayh diintuna waa itibaac marka in laga ciid yeeshaa waxay noqonaysaa min qabiil bid'a waa muhdathatul umuur bay soo gelaysaa waayo cidda habeenka nabiga sallallahu alayhi wasallam la dheelmiyey ama uu shakhsigu u qabo in habeenka la dheelmiyey ka ciid yeelanaya wuxuu ga jeedaa diin ahaan inuu u ixtiraamayo oo uga markaa u qadarinayo oo xafladaha iyo ciidaba uga yeelanayo taasina waxay noqonaysaa min qabiil bid'a iyaakum muhdathaati al-umuur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi an-naar diintu waa itibaac ikhtirac iyo ibtidaac ma marka kelmaddaas waxaynu kaga kaaftoomaynaa tanbiihaas yar ee kooban mawduuca ku saabsan ciidahana culamadu aad bay uga warramaan shaykhul islaam ibnu taymiya wuxuu aad ugaga hadlaa kitaabkiisa la yidhahdo iqtidaa'u siraat almustaqiim adillo badanna waa soo arooriyaa daliilada intaan hadda sheegay waa kooban tahay laakiin adillo badan iyo aasaar badan ayuu ku soo arooriyaa mawduucana aad iyo aad buu ugaga hadlaa kitaabka iqtidaa'u siraat almustaqiimna waa kitaab qayim oo aad u mufiida dabcada ugu fiicanna waa dabcada uu xaqiijiyey naasir alcaql waagii hore waxaa la taabacay iyadoo laba mujallada laakiin markii dambe daarulfadiila waxay taabacday iyadoo mujallad ah oo farta ay yaryaraysay ayay markaa taabacday marka kitaabkaas fawaa'id fara badan baa ku jira waa in aad loo taalacdaa ahlucilmiga qaarkoodna dee aad baabay u akhrin jireen culamada qaarkood waaba ikhtisaariyeen oo ikhtisaaraad bay ku sameeyeen hadday tahay mawsili sheekhii la odhan jiray hadday tahay ibnu cuthaymiin culamada qaarkood way diraaseeyeenoo waa dhigeen الشيخ صالح الفوزان عبر الإذاعة أيو مركا كأخرين جري اقتضاء الصراط المستقيم أو كشرح جري وحنا فيلا يا ولي إنه وضو 3 إنه هيد بان فيلا ما أنت اللي سودايا